mararka qaar ilmaha ama caruurta waxaa lagu arkaa in salkooda hoose ama dabada dhinacyada saracyada ilaa iyo xubnaha taranka wareegooda inay soo guduudatay nabar yar yar oo fidsan oo tiro badan midabkooduna uu yahay guduud in lagu arkay taasoo ilmaha ama caruurta ku haysa xanuun iyo danqasho badan saaxiibayaal markale baad soo dhawaada waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ku soo koobi doonaa mowduuciga maanta waxyaabaha inta badan sababi karo diaper rash in ilmaha lagu arko salkooda hoose dabada ilaa iyo saracyada ama dhinacyada inay noqdeen kuwa gudguduudan midabkoodu isbedeli dabcan nabar yar yar oo tiro badan oo fidsan ku yaalaan ilmahana uu ku haya xanuun iyo dikaan ama danqasho badan marka koowaad waxaa keeni karo in ilmaha uu ku soo laabtay shuban biyood haddii ilmaha marar badan uu ku soo laabto shuban biyood waqti isku dhow waxaa lagu arkaa in salkooda hoose midabkii uu isbedelay guduud uu noqday nabar yar yar oo tiro badan oo fidsan lagu arko gabi ahaan qaybta hoose salka inta badan shubanka soo laabtay wuxuu wataa inta badan acids iyo ammonia chemical factorieskaas uu wato ayaa waxay sameynayaan inay la falgalaan lakabyada sare maqaarka meeshana uu ka dilaaco noocyo ka mid ah caabuqyada gaar ahaan noocyada allergic wax qaybta labaad ee inta badan ay keeni karto arintan waxaa lagu sheegaa in badan waqti inay u xirnaato cafaayada in ilmaha bambareyskooda waqti dheer uu xirnaado waxay sababi karaa chemical factories wasaqda ilmaha ka imaada sida saxarada iyo kaadada inay isku dhex milmaan dabcan ay noqotay in derbiga ama geesaha dabada inay xoqaan ay ka dhalatay meeshaas bacteria iyo yeast ama fungi marka saddexaad waxyaabaha ugu badan ee keeni karo ilmaha in lagu arko in dabadoodu ay isbedeshay waxaa ka mid ah cunooyinka sida joogtada ah ee isku midka ah ilmaha loo siinayo sida ukunta bataatiga sidoo kale mooska in badan markii si toos loo siiyo waxaa lagu arkaa ilmaha qaybaha hoose jirkoodu inuu isbedelay inay ka qaadeen noocyo infection ama caabuq ah qaybta afaraad in badan ee keeni karta arintan waxaa ka mid ah waxyaabaha factorieska ama chemical reagentska ay ka samaysan yihiin cafaayadaha ama bambareska inay ilmaha qaarkoodu ay dhibi karaan jirkooda taasoo si toos ugu horimaanaya abdifaaca jirka maqaarkan uu ka soo muuqanayo in caabuq uu ku dhacay waxaana loo yaqaanaa atopic dermatitis qaybta shanaad inta badan ilmaha lagu arko in arintan ay ka soo muuqatay waxaa ka mid ah in ilmaha lagu dhuujiyo cafaayada ama bambareska si saayida loogu dhuujiyo dabcan simahooda waxaa ka dhalanayo islisitaan ama isxoqitaan badan sidoo kale dhididka meeshaas ka imaado si toos wuxuu la falgali doonaa lakabyada sare maqaarka meeshana in badan waxaa ka imaanayso inay muruxdo dabcan xasaasiyadna ay ka dilaacdo haddii ay noqotay inaad daaweysid waxaa muhiim ah inaad talooyinkan qaadatid kow cunuga inta badan hadduu shuban biyood ku jiro waa inaad qalajisaa maro yar oo khafiifa aadna wax daawooyina aadan ka marin waxaa sameynaysaa maro yar oo khafiifa oo dabcan saxarada markaa uga dhaqdid in maro yar aad ka saartid aadna u marisid saliidda coconut ama qumbaha waxay suurtagelinaysaa meeshaas caabuqu inuusan sii saa'idin sidoo kale guduudka iyo hurki badnaa ilmahan uu ka yaraado marka labaad waa inaad kontarooshaa ilmaha cunooyinka ama caanaha dhibaya jirkooda inaad ka ilaalisid aadna ka bedeshid sida cunada ukuntoo kale bataatigoo kale si isku mid ah aadan u siinin sidoo kale waa inaad dabcan aad samaysaa inaadan ilmaha aadan waqti dheer cafaayada aadan kusii deynin taasoo ah in ay ka dhalan karto chemical factorieska cafaayada iyo wasaqdii jirka ka imaada inay isla falgali karaan in cafaayada aad ka bedeshid aadna u marisid zinc oxide bumaatada loo yaqaano waxay in badan ay yareeni kartaa marxaladii aan ka soo hadalno sidoo kale in arintan haddii isbedel uu imaani waayo dabcan waa inaad la tashataa dhakhtarka maqaarka saaxiibayaal waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu